Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta maanta waxaan tusi doonaa waxay tahay sida aad ugu xiran lahayd WhatsApp-kaaga PIN. Haddii noqoto nambaro, haddii noqoto fartaada, haddii noqoto wejigaaga, sida ugu xiran lahayd ayaan ku tusi doonaa insha Allah. Hadduu Ilaahay idmo ay daawasho waxaan videogeetiisa dambe insha Allah. Waa furanaysaa WhatsApp-ka. Markaa furatid kabacdi setting-ka ayaa galaysaa. Meesha setting ku qoran tahay ayaa galaysaa. Account meeshaan ku qoran tahay ayaa kasii galaysaa. Markaa gashid profile ayaa kasii galaysaa. Hoos ayaa u degaysaa. Marka security log meeshaan ku qoran tahay ayaa taabanaysaa. Aniga waa kay on ayaa leedahay meeshaas. On markaa dhaadid kabacdi aniga hadda waa ii furan yahay. Adiga on ayaa leedahay hadduu kaa xiran yahay kabacdi wuu ku furmayaa. Marka hoostan waxa waaye horuma ku xirmaya 1 minute kabacdi wuu xirmaya 15 daqiiqo kabacdi wuu xirmaya mise hal saac kabacdi marka WhatsApp ka baxid ayuu is xirayaa. Marka waqtiga adiga aad rabtid ayaa dooranaysaa. Hadda waxaan ku tusi doonaa WhatsApp-ka ayaan ka bixi doonaa sida uu igu shaqeynayo ayaan ku tusi doonaa. Waa kana WhatsApp-ka waan ka soo baxay. Markaan ka soo baxdana waan ku noqdo waa kay wuxuu leeyahay ID wax adiga aad rabtid haddii far kugu xiran tahay fartaada ayaa gelinaysaa. Haddii kugu xiran tahay wejiga kugu xiran wejiga ayaa gelinaysaa. Haddii uu kugu xiran yahay PIN caadi hadduu kugu xiran yahay PIN-kaaga caadiga ayaa gelinaysaa. Aniga hadda mid qalad aan gelinayaa. Mid qalad markaan geliyo waa kay PIN-kaaga geli ayuu leeyahay. Hadda waan ku celinayaa. Markaan ku celiyo kabacdi waa kay wuu ii furmaya caadi igu furmaya farteeda ayaan ku furay. Marka asxaabi intaas ayaan nigu wada maanta aan fahansin rabay. Marka insha Allah waxyaabaha kale aad ka fahansaneen iPhone-ka ila soo wadaag insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.